dadka la soo celiyey oo u badan dhalinyaro da'doodu ka hooseyso 40-ka ayaa ka dareemaysay farxad markii ay cagaha soo dhigeen dalka iyagoo ku faraxsan xabsiyada laga soo daayay ee dalka Tanzania halka oo ay safaaradda Soomaaliya iyo jaaliyada ay u istaageen soo deentooda. qaar ka mid ah maxaabiista oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa u mahad celiyay mas'uuliyiintii u istaagay in ay xorriyadooda dib u helaan. waxaan u xirnaay waxa waaye maxbuus ahaay Tanzania ما شاء الله دولتي ay soo deysay sida waxaan u mahad celinayaa safiirka Tanzania u fadhiyo qunsuliyadda Firdowsa maama aad u qaali ah waaye ما شاء الله dalkayaan ku faraxsanahay Soomaaliya asraad iyo ergeyga Morema ما شاء الله ay ilaahay mahad celinaya gaar ahaan dawladda Soomaaliya oo naga soo deysay annagoo dad badan meeshaas si nabadana dalkanaga aan ugu soo laabanay gaar ahaan markii aan gaar ahaan u sii dhaana habaryartay Firdowso oo noo diyaashay oo in badan meesha noogu diyaari jirtay oo mar walba naga warqabi jirtay u dambeeyay dagaal beeleed ku dhexmaray laba beelood oo walaalaad deegaanka Jidbaale ka soo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. haddaba waxaan ka wareystay xaaladda guud ee deegaanka Jidbaale suxufi madax bannaan oo ku sugan degmada Xudun lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Cawil Kawte Jidbaale iyo Lafweyne meel u dhaxaysa ayaa waxa ka dhacay dagaal meel yiraahdo Booda halka waxa ka isku laayay dad walaalo ah oo wadaaga oo wariyaalood walaalo ah wada tagi jiray sax halka waxa ku dhintay ilaahay u naxariistay qof sax toddoba kalena waa ku dhaawacmay markaas waxaad nooga warantaa maxaa sababay dagaalkan labada beelood in iskaga hor yimaadaan والله أنا ما أدري واحد صوي دريا واحد الدجاجة كان لقيت سميني أو ذاتك الدجاجة كان كذا يقول الدجاجة اللي كنت سمينيين أو براجع يحنا عن صوي صح تعالوا نرسل كل عضية أو صار كان أوشة صور imika ma jirtaa wax waan nabadeeda oo la soo dhex galay ama ha ahaato cuqaasha iyo odayaasha deegaanka ama dawladda labada beelood cid dhex gashay ma jirtaa ciidamada ammaanka oo labada deegaan dalka Xuduuriyo ee dalka la qaado ka kala yimid deegaanka way soo gaareen hadda waxa socota waa nabadeed deegaanka waxa la kala dhex galay dadkii dagaalamaya ciidamo jamhuuriyadda Somaliland sax halkaas hadda waa barsocoto si fiican baa wax socdaan labada dhinac waa la kala qaaday ciidamadii meesha ku dagaalamayay sax waxa lagu celiyay markii hore ku sugnaayeen marka meel fiican baa wax marayaan oo wanaagsan kulanka guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka qabsoomay xarunta golaha ee magaalada Muqdisho waxaa gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi ajandaha kulanka guddiga maanta ayaa ahaa soo bandhigida waxqabadka golaha aqalka sare laga soo bilaabo 2017 ilaa 2020 iyo mudaynta dhageysiga warbixinta doorashada 2020 ilaa 2020 ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka dalka guddigu wuxuu ku gudoonsaday kulankiisa maantay qodobada soo socda ugu horeyn waxaan ku bogaadinaynaa dowlad goboleedka Galmudug iyo shacab weynaheeda bugasha Soomaaliyeed ee ay u fidiyeen mas'uuliyiinta labada heer dowladeed si ay uga wada hadlaan arrimaha masiiriga u ah qaranka Soomaaliyeed labo waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta labada heer dowladeed ee u madlan inay isugu yimaadaan shirka Dhuusamareeb 3 oo ku asteysnaa maantay oo bisha 15 August 2020 in laga wada shaqeeyo sidii uu qabsoomi lahaa shirkaas isla markaasna ahmiyad gaar ah loo siin lahaa ka qaybgalkiisa saddex waxaan u soo jeedinaynaa annaga oo maanka ku hayna ahmiyadda uu shirkaasi u leeyahay ummadda Soomaaliyeed xilligan kala guurka ah
in mas-uuliyiintu ka miro dhaliyaan shirkaas lagana soo saaro go-aamo dhaxalgal ah oo dalka ka samata bixiya xaaladan kala guurka ah. guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibek ayaa maanta ururada guddoonsiiyay aqoonsiga ururnimo. madashan ay ururadu shahaadada ku qaadanayeen waxaa ka soo qayb galay saddexda gole ee dawladda, ururada siyaasadda, qaybaha kala duwan ee shacabka iyo hay'adaha madaxa bannaan. waxaana looga hadlay fursadaha ay shacabku u heli doonaan inay codkooda u dhiibtaan si xor ah cidda ay rabaanna u codeeyaan. goobta waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiinta ka kala socday ururada iyagoo ka hadlay muhiimadda uu leeyahay in Puntland u gudubto asxaabta badan. sidii hore sheegeen waxaynu tafaariqeynaa waxaana mana wada cun doorashada ma la wada galo degmooyinka iyo 2 iyo 3 iyo hanala ka daay wala ceel ku day shaki baan qabnaa waxa la wala ceel ku day weeyii badda boolka baa la tijaabinaya marka waxaan leenahay mar hada wada qaato taas haddaan may iskiira arrintaas waxaanu ka samaynaa taas. sidoo kale waxaan baa u dirayaa bulshada reer Puntland maanta waxaad joogtaan 20 sano kadib waxaad ku taamayseen xaqiijinteeda waa mas'uuliyad annaga iyo idinka wada saaran. waxaan rabaa inaad ku dagaalantaan codkiina ayaa macno sameynaya maanta. gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland Guleed Saalax Barre ayaa sheegay in ururada ay mamnuuc ka tahay inay yeeshaan astaan qabiil, sidoo kalena waxa uu ka hadlay in ay si cadaalad ah ugu shaqeyn doonaan ururadu ay xaq u yeelan doonaan inay cabiraan afkaartooda siyaasadeed. waxaan ku faraxsanahay waliba maalintii koowaad inay halkan ka bilaabeen stagekan ay ka bilaabeen inay cabiraan fikradooda siyaasadeed ayagoo markaa xor u ah. kaliya waxaa la rabaa wax weyn in la ilaaliyo xasiloonida guud, amniga guud, waxa aad u tartamaysaa ama u socotaa wayna hoggaanka qabatid. marka waa inaad sida aad jeceshahay in lagula dhaqmo aad ula dhaqantaa cidda markaa joogta iyo shacabweynaha Puntland laftigooda oo ah cidda aad rabtid codka inaad weydiisatid ay ku siiyaan. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyiinta Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa ka hadlay doorka ay wasaaraddiisu ka qaadan doonto in Puntland u gudubto asxaabta badan. in la soo saaro haddii aan laydmo maxaa la yidhaahdaa soodimaha ay yeelanayaan degmooyinka Puntland kuwa cusub iyo kuwii hore iyo gobollada cusub iyo gobolladii hore si marka ay ugu fududaato guddiga doorashooyinku inay calaamadiyaan seejooyinka ay ka dhici lahayd doorashadu haddii aan laydmo golayaasha deegaanka. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa sheegay in xukuumadda ay ka go'an tahay in Puntland ay u gudubto nidaamka asxaabta badan. maanta ay xigta aniga shaqadoodu faragelin ma lahayn waa madax bannaan ikhtiyaar bay leeyihiin dibna inay ikhtiyaar u yeelan doonaan baan rajaynaynaa. marka sidaa daraaddeed waxaanu annagu ka rabnaa cadaalad, sinaan, maxay ahayd wixii aynu samaynay oo midho dhala oo gaadha wixii loogu talagalay. mar haddaan idin idhi waa ku kalsoonnahay in qof iyo cod la gaadho waxaanu u xiganaado maxay u cabirinaaba dhimaysi ma taalo haddii alla yidhi. kaanoy maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa mar kale waxa ay ka hadleen xariga maamulaha guud ee shirkadda Astaan TV Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo in ka badan muddo bila ku xiran magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland. odayaashan ayaa waxa ay codsi kala duwan u direen odayaasha dhaqanka Somaliland, mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in sida uu dhaqsiyaha badan ay ka shaqeeyaan sida Cabdimanaan uu xorriyadiisa uu ku heli lahaa. dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Imaan Macalin Cumar Abshir, Nabadoon Cabdulaahi Xuseen iyo Abwaan Bedel Jaamac. maamulka Somaliland oo uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda dhaqanka ama salaadiinta ama duubabka hadba sidii loo yaqaan oo Suldaan Maxamed Cabdulqaadir uu chairmanka ka yahay iyo dhammaan bulshada rayidka iyo dhammaan dhalinyarada iyo dhammaan ganacsatada ma kala harsana baaqeenu galabtay wuxuu ku wajahan reer Somaliland si walaaltinimo leh, si mas'uuliyad leh, si damqashana leh, si islaamnimo leh, si qaraabanimo leh. intaas ayaa warkeenu galabta bayskiisu yahay ama baahideenu. waxaan codsanaynaa Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo ah milkiilaha Astaan Cable oo xiran muddo bil ah kuna xiran
si aanan ku qanacsanayn ku xiran si aysan ku qanacsanayn dadkii uu ka soo jeeday iyo chairmankii guud ee uu ahaa Astaan TV dadkii uu gudoomiyaha ah iyo annagoo odayaashiisii dhaqanka ah intaas markii la isku daro waxaan codsanaynaa madaxda reer Somaliland ee aan hore u soo sheegnay in ay soo daayaan xorriyadiisa la siiyo odayaasha Soomaaliyeed ah inaad muxuu ahaa ninkaas aad nagu xurmaysaan aad noo soo daysaan waxaa xaqiiqo ah oon teesara uga gooyaa gobolka Banaadir siiba degmada Kaxda aan uga soo gooyay rag badan ee reer waqooyi oo Isaaqa ayaan u gooyaa anu ma kala qaan muxuu ahaa sheeg jifanicda hoose ma kala aqaane reer Isaaq oo waqooyi ayaan anu qaan muxuu u gooyay kuwa Boorama ka yimidaan u gooyay kuwa muxuu Jabuuti ka yimid kuwa Soomaali galbeed ka yimidaan u gooyay kuwa muxuu ahaa sheeg inafdii ka yimidaan u gooyay iska badaa inta dhaxe sidaa darteed Soomaali waa mid in la kala qaado ma ahan anigu suldaanka beesha Sheekhaaleed baan cabdinamaaf adeerkiisana mag boqol hadduu gala anaa bixinaya malaayiin dollar hadduu dhaca anaa bixinaya wax kasta uu u geysta anaa laygala soo xaalaya nabadoon suldaan bedel jaamac xirsimaan hargeysana waa layga yaqaan waxa igu wallaahi ilaahay ninkii yaqaan baa loogu dhaartay waan weyse qabaa 11 nin oo reer Hargeysa oo dhalinyaro baan shaqo qoray oon damiin ka noqday oo hadda dawladda u shaqeeya gurigaygana 3 baa hadda u hoyda habeen iyo maalin baseexda oo wax ku barta anigu nin reer Hargeysa baan nin reer Gabileey ahaan horeyna waan u sheegay oo waan ka hadlay dadku xagga iyo xaggaba waa jooga ganacsigu meel walba waa jooga dhalinyaradu meesha walba joogta war culimadiinii baan haddaanu sheeqaalay bal markii laga tago Soomaali kale iyo irir iyo dir markii laga tago war culimadii diinta idin bartaana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamed Umar Filish ayaa xarig ka jaray 2 xarumood oo laga hirgeliyay degmada Kaxda kaas oo maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay xarun caafimaad iyo sidoo kale iskuul waxbarasho oo loogu qidmeyn doono bulshada ku dhaqan degmada Kaxda degmada baahiyaheeda way badan yihiin sida aad sheegteen oo culimada ay sheegtay iyo akhyartuba baahiyooyinka degmadan waa baahiyooyin ay qabaan degmooyin badan oo gobolka Banaadir ah qaar badanna muddadii ay joognay waxbaa laga qabtay baahida koobaad waa baahida wadooyinka runtii wadooyinka qaar ka mid ahna waa la dhammaystiray oo gobolka Banaadir ah qaarna hadda ayay socdaan qaarka la dhammaystiray waxaa ka mid ah wadada dekeda iyo wakaalada Moscow isku xirta oo gobolka Banaadir albaabkiisa hore marta wadada gaadiidka booliska iyo stadiumka ilaa isgoyska Marina wadada meesha la yiraahdo Cirtoogte wadooyin kale oo ay ka mid tahay يعني لما وضع إسبربر تعلق أو كسرعة أو كتلا دينيله وددا ورشدها إلى علي كمين إلى لقيس وجارة تياتر كقرن كنا ورشه هذا الوضع وددا باريان السيناء إلى السيناء هي الدرجة كدهسون هذا يسوعتا وبوندر iyo warta nabada u dhaxaysa waxa jira wadooyin kale oo qorshaha ku jira